Munaasabaddan oo 48 saacadood ugu dambeysay si weyn looga dareemay magaalada Boorama ayaa ahayd mid u reeban xafladda qalin-jabinta dafcadii lixaad ee ka baxday Jaamacadda Hon International University ayaa xilli hore saaka lagu qabtay mid ka mid ah hoolasha ka binaysan hoteelka Rays ee magaalada Boorama. Ardaydani maanta ka aflaxday jaamacadda ayaa dhammaystay 5 kuliyadood oo ay ka kooban tahay kuliyadaha caafimaadka ay bixiso jaamacaddu. Munaasabadda ayaa waxaa kala soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland, xubno ka mid ah golaha wasiirada, agaasimayaal, maamulka gobolka, madax dhaqameed, mas'uuliyiin, aqoon-yahano iyo waalidiinta dhalay ardayda maanta qalin-jabinaysay. Ugu horreyn waxaa munaasabadda furtay gudoomiyaha boorka jaamacadda Hon Marwo Baasho Cumar Maxamed iyo madaxweynaha jaamacadda Hon Professor Maxamed Cabdi Ismaaciil. waa groupkii lixaad ee qalin-jabinaya ee caafimaadka iyaga waxaan leeyahay maanta baga ayaad soo nabad gaadheen idinkoo bad qaba yoolkiina intaas oo dhan aad soo wadeen ee waxbarasho. Congratulations. kadib markii aad dhamaysateen credit-kii iyo shuruudihii waxbarasheed idinka baahnaa, kadib markii aad baasteen imtixaanaadkii 4 sanadood ee ugu dambeeyay iyo imtixaankii ugu dambeeyay comprehensive ahaa ee externalka ahaa, kadib markii anigoo tixraacaya natiijada iyo grade-kii duwaanayaha guud ee jaamacadda ee xaqiijinayay inaad dhamaysteen dhammaan shuruudihii iyo credit-kii jaamacadeed idinka baahnaa, maanta laga bilaabo waxaan halkan idinka barakacaynaa anigoo ku hadlaya magaca guddiga sanadka jaamacadda. waxaan idinka barakacaynaa inaad mutaysateen digriyada halkan laydinku guddoonsiin doono. maanta laga bilaabana dadka halkaa jooga dhammaantood waxay maraka yihiin markhaati ka nahay in aad qalin-jabiseen. ardaydaasi waxay aad u soo qaateen tacliintii loogu talagalay, waxayna maanta u hanqaltaagayaan inay noqdaan dhakhaatiirtii waddanka. Thank you for coming to share the joy accomplishment of these graduates, helping this day very special, memorable one, and especially those of you who are coming Boorama for the first time. Again, I would say, and allow me to congratulate all students of 2021 for their wonderful accomplishment of the academy. intaasi kadib waxaa codbaahiyaha u kala dambeeyey mas'uuliyiin xubno ka socday jaamacadaha Itoobiya iyo Somaliland, waxayna duco iyo dardaaran u jeediyeen ardayda maanta ka aflaxday jaamacadda Hon. runtii maanta ardaydan aan farxadooda kala soo qayb galnay, waxay ardaydani ay muujiyeen dadaal, waxay soo mareen hayaan iyo geedi dheer. So we established there, many people come to Hon International College, graduated, and about 5,000 graduated from Jijjiga College. After that, 8 years ago, we opened the branch here. So Hon International College is the best friend of the Somali people. Especially, I'm happy for today. This is fair graduation. Humble you. Allow me from the onset to congratulate all the graduating class of 2021 for this wonderful accomplishment. Graduation is such an important milestone for graduates and their families. duwaca suunteen qalin-jabinta dufcadda lixaad Hon. marka aad baad u mahadsantihiin jaamacad ahaan inaan la shaqayno diyaar baan ahay. waxaan leeyahay maanta bagaad u soo gaadheen maalintan qiimaha iyo qaayaha leh ee sharafta badan. waxaan idin leeyahay hambalyo. maanta runtii aad iyo aad baanu idla farxad idla qaybsanaynaa xilligan maanta joogtaan ee ah inaad qalin-jabinaysaan. maanta ayaad ku soo biiraysaan bulshada. aan u hambaliyeeyo ardayda kala duwan ee ka qalin-jabinaysa jaamacadda Hon. waxaan idin leeyahay hambalyo. maanta madashu waxay daaran tahay keliya in laydin idhaahdo hambalyo, in laydin duceeyo iyo in laydin dardaarmo. ogaada waxbarasho marka la leeyahay waxaa had iyo jeer lagu tilmaamaa inay tahay hanaan suurtogeliya
inuu qofku isbedelo waxaan hambalyo iyo duco isugu dari ardayda qalinjabiyaasha aynu maanta ka nahay markhaatiga inay qalinjabiyeen ay soo dhamaysteen waxbarashadoodii jaamacadeed heerkii koowaad waxaan leeyahay Allah idinku anfaco arday caafimaad barata waxaad ku bashaaraynaya caafimaadku suuq ballaaran buu leeyahay xagga marketingka waxaan uga jeedaa markaynu ku noolnahay Afrika disease waa wax fara badan ama caafimaad darradu way ka badan tahay caafimaadka يعني xanuunku waa wax u baahan la tacaalid u baahan in dad badan loo soo saaro sadarteed ma tihiin dadka ku istaagi karaya shaqo abuur cid idin sameynayso laakiin idinka waxa taagantii front line-ka inaad la dagaalantaan horta shuhuud waxaanu ka nahay qalin jabintiina inaad jaamiciin noqoteen oo qalin jabiseen waan idinku hambalyeynaa waa ardayda qalin jabisay ya farxad leh hambalyo baan leeyahay ilaahay cilmiga barataan aad ugu anfaco waxa kale oo hambalyada ku jira waalidkeedu ku soo tabcay iyadu ku daalay oo maanta la doonayo inaad nasisaan wasiir ku-xigeenka waxbarashada Somaliland mudane Cabdikariin Saciid Bustaale iyo wasiirka beeraha ee Somaliland mudane Maxamed Xaaji Ismaaciil iyo madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Injineer Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo ugu dambeyn madasha ka hadlaya si weyn u bogaadiyay munaasabadan qiimaha badan leh ee ardaydan qiimaha badan leh ay ku qalin jabinayaan himilooyinkii iyo hiigsiga ay kala haayeen aqoontooda inay maanta gaareen mid ka mid ah yoolashooda koowaad waxaan leeyahay hambalyo dadka caafimaadka bartay inay naxariis gaar ah ay yeeshaan waayo waxa ay la kulmayaan waa dad baahan waa dad jilicsan waa dad u baahan in la xanaaneeyo waa dad u baahan in laga dhowro waxa la wixii hadala ee ma garanaysaa wax u dhimaya xanuunkooda maantana guushii la arkay in dafcaddii lixaad ka qalin jabinayso saadarteed waxaan hambaleynayaa dafcaddan lixaad ee 150ka arday ka qalin jabiyeen ee habliyo wiilalba leh ee sharafta badan ee aqoontii ugu mudnayd aqoomaha la barto aqoontii ugu mudnayd bartay oo aqoon caafimaad oo tabniyaanku mar walba aanu ka maarmina waxaan leeyahay marka hore guul baa rajeynaya waxaan leeyahay hambalyo ugu dambeyn madaxweyne ku-xigeenka Somaliland iyo mas'uuliyiinta jaamacadda Hoon ayaa mid u guddoonsiiyay ardayda shahaadooyinka ay mutaysteen Cabdirasaaq Cumar Macadowliyo telefishinka CBA Boram